dugsigaani waa dugsiga hoose dhexe ee 21 Oktoobar ama 22 Oktoobar. ardayda dhigato tayadooda waa arday tayadooda aad u sareyso laga bilaabo sanadkii Janaayo bishii Janaayo ilaa iyo hadda aan la furo iskuulka yaa daayo emaan oo dayactirtay arday fara badan oo noo dhiganooyin ilaa iyo 1000 iyo xogaa arday noo dhiganooyin part time macnaha waa jirtaa xilli dambe 6 saac markii laga deeyo ardayda qaybta dambe loo soo laabtaan iyo kuwa hoose markii la isku wada daro waxay gaarayaan ilaa iyo 1000 iyo xogaa arday waana arday tayadooda aad u sareyso mashaariic xoog leh ayaa laga fuliyay magaalada Marka waxaa ka mid ah iskuul weyn ee ku yaala magaalada bartamaheeda ee lagu magacaabo 21 Oktoobar ayaa laga hirgeliyay madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ayaa yimiday wuu xirag jaray kadib iskuulku waa iskuul dowlad ayaa gacanta ku haysa waxaa maanta ka faa'iideysta ama dhiganaya arday gaaraysa 1000 ilaa 1400 arday gaaris u dhaxaysa ayaa dhiganaysa waxaa bilowday oo aan ka shaqeynay xarumihii waxbarashada oo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed uu yimid uu dhagax dhigay kadibna uu xariga nooga jaray iskuulaadkii ugu magac dheeraa ee degmadan ay lahayd